بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلام يا خيارتي دقالي channelkeena asma nuureen beauty qurxinta hablaha ku xidhan maasha Allah asma nuureen beauty maanta maxay idin sidaa ama mowduucin maanta ka hadlaynaa maasha Allah fadlan subscribe yaa niga codsanaynaa maasha Allah maanta mowduuceenu wuxuu ku saabsan yahay caadada dumarka waxaana ka hadlaynaa caadada anako ka hadlaynaa caadada ama asbaabaha ay caadadu ku raagto caadada dumarka sida dabcan sida anaka wada ognahayba caadada dumarka ama caadada hablaha ama caadada ruuxa dumarka waxay dabiici u tahay ama dabiici gaar ahaan dumarka uga imataa 28kii cisho marba uga imataa marka qaab dumarka qaarkood ama hablaha qaarkood waxa dhacdaa mararka qaarkood inay ka raagto caadadu ama ay caadadu waqtigeega ka iman weydo ama ay caadadu iyagoo wali ay gaadhin waqtiyadii uu kaga tagayay ama waqtiyadii uu kaga guurayay caadadu ay gaadhin iyagoona gaadhin ay sababtaa inay ka go'do ama ay ka raagto marka maxaa sababa maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha sababa caadada yacni inay ka raagto marka dabcan Soomaalidu waxay ku mamaadaa cid kasto maqanba sabab ay la maqantay marka ma isweydiisay wuxuu kaaga maqan yahay ama wuxuu kaaga raagay doctor badan ayaa isweydiiyay marka runtii sababo badan ayuu kaaga raagi karaa ama kaga raagi karaa caadada dumarka ama sida u yaqaaniin habluhu isbuuca dhiiga hablaha ka yimaada marka sababaha badan waa maxay stresska laakiin waxa ugu muhiimsan oo inta badan koos gareyn kara inuu caadadaadu ay ka raagto ama caadadaadu ay muddo qaadato waxa koos gareyn kara inta badan stresska pressure-ka marka waxyaabaha badan waxa kamid ah stresska waxa waaye waa ruuxa bilaadanka ama ruuxa haweenka oo booqo maskaxdiisu ay booqdo iyo pressure-ka waxyaabahaas oo dhan ayaa keeni kara marka qofka bilaadanka ilaahay maskaxdiisa wuxuu ku dhaxabuuray ilaahay maskaxdiisa hormoonada madaxa kamid ah hormoonata ah hormoonkaas oo ah ka produce gareynaya ama ka xukumaya ama ka maamulaya dhiigaaga marka adiga hormoonkaaga madaxaaga ku dhaxyaala ama hormoonadaada madaxaaga ku dhaxyaala ee u qaybsan dhiigaaga ama caadada hablaha dumarka u qaybsan kaasi haduu isaga booqo ama haduu damage sameeyo ama kuleel badan haduu dareemo marka stress iyo pressure leedahay adiga stress badan iyo booq badan leedahay arabash badan leedahay markaas isaga uu damage gareynaya marka isaga uu damage garaaya marka maxaa sababaya inuu dhiigaagi yacni muddo qaato oo iska raago isaga sabab galeynaya waayo waa kii xukumayay ee produce gareynayay inuu dhiigaagu kala socdo caadadaadu kala socdo marka isagu damage gareeyo sabab bay u noqonaysaa caadadaada sirkalkaaga ama reegalkaaga marka waxa jirta sabab kale oo saddexaad waxa waaye qofka ruuxa ama qofka dumarka ama gabadha oo buureed marka hore tacayilsaneed oo aad u cayilsaneed oo kulmidaata baruurta ama hilibkii ka dhacay oo kulmidaata way lost ku dhacay oo buwageegi ka dhacay ama miisaankii ka dhacay ama baruurtu jirkeega ka dhacday marka gabadha maxay sababi kartaa ay degdeg u caatoodo marka iyada waxa ka tagay nafaqo badan ma ka tagay marka iyadana waxa sababi karta inuu 40 cisho ama 30 cisho ama waqti muddo qaato caadadeedu ka maqnaado marka hablaha iscaateynaya waxaan dhihi lahaa aniga gaar ahaan aniga waxaan u dhihi lahaa hablaha iscaateynaya degdeg isku caateynina waayo uu nii sababaya inuu dhiigaaga isaga ama caadadaadu joojiyo sababta kaleeta ee ka raajin karta caadadaada inuu muddo qaadatana sababi karta waxa waaye hormoon caanaha la yiraahdo oo ruuxa haweenka ku dhaxyaala hormoonada ruuxa haweenka ku dhaxyaala marka hormoonka caanaha la yiraahdo isaga haduu waqtigiisa dhaafo ama waqtigiisa caadiga normalka dhaafo oo waqtigiisa dabiiciga dhaafo isagana uu joojin kara oo stop gareyn kara caadadaada uu stop gareyn kara marka waxa tagi kartaa la socon kartaa oo adiga nafahaantaada marka kula soo waajahanto in caadadaadu ama dabiiciga waqtigeega iman weydo
ama ay kaa raagto doctor baad aadi kartaa. waayo doctorka isagu muxuu sameynayaa muddo badan isagu wuxuu la soconayaa hormoonadaada, hormoonka ku dhex yaala ee khaladka sameynaya, khaladkan stop gareynaya caadadaada ama circle-kaaga ama regalkaaga stop gareynaya ayuu isaga la soconayaa. marka waxaa lagaaga baahan yahay haweeney inaad la socotid doctor. marka dabcan markay caadadaadu 50 cisho dhaafto ama 40 cisho dhaafto waa inaad isu soo jeekaraysid ama waa inaad sida u taqaantid ma Soomaaliga inaad isu soo baadhid yaa lagaaga baahan yahay oo doctor la socotid. sababta kaleeta maxay ahayd ka caadadaada joojin karta ama circle-kaaga joojin karta waxa waaye sababaysa iyadana waxa af carabiga luqadda carabiga lagu yaqaano takayif ilmabaa'id lagu yiraahdo as Soomaali ahaan ukun yacni meesha oo ilma galeenka iyadana wax sababi karta lagu yaqaano. marka ukunta ama meesha tiyubada loo yaqaano oo iyadana wax ka soo baxaan waxyaabaha safiixdo kale ka soo baxaan iyadana way stop gareyn kartaa ay way joojin kartaa iyadana maxay ahayd dhiigaaga way broken kartaa. waayo meeshaas waa meesha kaliya ee caadadaada ay ka kala socoto ama hormoonka kaliya ay ka kala socoto waaye meesha tiyubada ama ukunta loo yaqaano. marka waxa lagaaga baahan yahay ama saa u garatid ama waad garan kartaa markay ukuntaadu progressan tahay block gareysan tahay oo wax ku yaalo ama fiixo kale ama wax kaa soo bixin waad garan kartaa. markaas waxyaabaha lagu garto waxa waaye adigoo hilib badan ku fuula cayilitaan badan yeesha yaa lagu garan karaa. marka waxa kamid ah sababaha lagu garto ama sababaha lagu garan karo in naftaada yacni dhinaca fiix ka soo baxday ama ukuntaada progressan tahay block ay tahay oo wax ka soo bixin waxa lagu garan karaa yacni adigoo hilib saayida ku fuula barro saayida ku fuusha adigoo waqtigii yacni dumarka ay ku dhali lahaayeen dhaafa adigoo imika matalan 3 sano ku dhareer leh oo 3 sano ku dhan ilaahay waxba kugu siinin yacni marka waa isjeekareyn kartaa ama waa soo baadhi kartaa isjeekareyn kartaa dhakhtar baa la socon kartaa. iyo sababaha kale lagu garan karo yacni inuu block gareysan tahay ukuntaadu ama tiyoyaashaadu oo ay block gareysan waxa lagu garan karaa adiga oo meel ay tima ay weliga ka soo bixin dadka ay ka soo baxaan sida yacni xundurta iyo caloosha dhexdooda ay ka soo baxaan oo kaleeta. marka adiga waxa lagaaga baahan yahay haweeney inaad doctor la socotid. Assalaamu